ciidamada dawladda federaalka ee dalka Itoobiya ayaa waxay xabsiga u taxaabeen madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar sida laga baahiyay muuqaalkan warbaahinta dawladda. Cabdi Maxamuud Cumar waxaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay xadgudubyo xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale isku dhacyadii diineed ee ka dhacay gobolada Soomaalida iyo Oromada ee wadanka Itoobiya. sidoo kale waxaa la sheegay Baleysku inay raadinayaan shakhsiyaad kale oo lagu eedeeyay inay ka qayb galaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo isku dhacyada qowmiyadaha kala diinaha ah. waxaa la soo bandhigay sidoo kale hub ay ciidanka federaalku gacanta ku dhigeen. baarlamaanka dawlad deegaanka ayaa shalay xasaanada ka qaaday Cabdi Maxamuud Cumar iyo 6 xubnood oo kamid ah maamulkiisa kuwaas oo loo haystay inay deegaanadaasi ka geysteen gabood fallo ka dhana aadanaha intii ay maamulayeen. xeraalyaha guud ee Itoobiya wuxuu xaqiijiyay xariga Cabdi Maxamuud Cumar wuxuuna sheegay in loo haysto eedo la xiriira ku takrifal awoodeed isirnacayb diinta koor iyo kicin qalalaase. xeraaliyuhu wuxuu intaa ku daray in sidoo kale ay Baleeska Itoobiya ku maqan yihiin xubno isagoo xiriir dhow la lahaa kuwaas oo ku lug lahaa eedeymahan. Ra'iisul Itoobiya ayaa sabtidii sheegay in Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubnihii kula jiray maamulkiisa loo haysto eedeymo ayna wajihi doonaan sharciga dalka Itoobiya. Cabdi Maxamuud Cumar ayaa lagu eedeeyay xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee ka dhici jiray dhulka dawlad deegaanka waxaana jira hay'ado hore u dalbaday in cadaalad la hor keeno. Yusuf Cabdi Shire wararka telefishinka iyo raadiyaha SBC Garowe.